galinkii dambe ciyaar saaxiibtinimo ay ku dhex martay garoonka Xaaji Daahir Stadium labada kooxood ee ka kala socda dawladda hoose Boorama iyo kooxda duulista hawada ee Burco ciyaartan oo ay ka soo qayb galeen dhalinyarada xiiseeya sportska munaasabada furitaanka ciyaarta ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaasha labada kooxood oo ugu horeyn uu hadalka qaatay Axmed Heego oo ku hadlayay afka gudoomiyaha kooxda dawladda hoose Boorama قرح بطن نظامه مركز توحن مهل علمية تيفيجا علمية هي تيفي واحد ما تعن قابلات هذا صار كيسابا لو يبدي هو كسرعتها قبل كتبين مجال البرعون كروح راسه غير على مجال هو عيارته دولست أيها هو البرعون أنا جوا دولة دوسة مجال البورنا سفر دوان أنا وأنا ببحني مجال البرعون الدين بيجي أيام خلاص عيار كروحه وكويس في عدو سلوكي halkaasi waa kaga soo badinay laakiin maanta iyagu waxa soo raacday waa arko soo lugta labaad yimaadeen insha Allah ciyaartuna way adag tahay wahaafkii hore hal iyo hal bay socotaan waxa rajeenayaa oo baadaya fiican kooxda inaan si fiican aan uga badin doono insha Allah natiijo wanaagsan ka gaari doono وعلى الريد وكان ويك برسم برعو يارتي دروس وطا عافية برسم قول برسم نبغى نتجينا إن شاء الله sidoo kale waxa ka hadlay tababarayaasha kooxahaasi waxa hadalka ku horeeyay tababare Ayub Cabdi oo ah tababaraha kooxda dawladda hoose ee Boorama maanta waxaan joognaa garoonka Xaaji Daahir Stadium oo loo joogo tiim martiin ugu yimid gobolka Togdheer Burco tiimkaas oo tiimka duulistii hawada Burco anoo eedin may kula soo ciyaarnay gobolka Togdheer halkaas aad tii lagu soo dhaweeyay insha Allah noo waxaan rajaynaynaa halkan aad ugu soo dhaweeyno ciyaartana meel fiican noo maraysa gool iyo gool insha Allah inuu guuleysano rajaynaa fi ilaahay laabo wad maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxay Umar Xuseen Maxamed coach kooxdu waxaan ciyaarnaa la ciyaarnaa koox aad iyo aad u wanaagsan si wanaagsan noo soo dhaweysay bad fiican run ahaantii nala ciyaartay oo noo soo bandhigtay waxaan rajaynaynaa ciyaartii inaan guul aan kula laabano gobolka Togdheer guushaas oo aan ciyaartooydeeda ka kalsoonahay kadib bilowgii ciyaarta ay ku bilaabatay dardar labada dhinaca taasoo badneyd weerar iyo weerar celis si kastaba ha ahaatee ciyaartan oo xiiso badneyd ayaa ku soo dhamaatay barbaro 2-2 ah waa Cabdiraxmaan Jaamacaye telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV magaalada Boorama.